intaanan masalada xanuunkan ka bixin waxaan filayaa inaad soo martay maalmahan labadan maalmood aanan filayaa inay su-aasheedu soo badan doonto. xanuunkani waxaa la yidhi qofkuu ku dhacay dad baa u dhintay, qofkiina in la ag mara lama ogola oo dhib baa dadkii ka soo gaaraya. su-aal waxay ka timid mas'aladaasi dhaqitaankii qofkaas iyo kafankiisii maxaa la samaynayaa? dabcan kafanka wixii lagu duubaba waa asaxayaaye haddii aan la kanfin la dhaqinna ma lagu tukan karaa? haddii aan lagu tukanin salaaddii see la yeelayaa? dabcan haddii la yidhaahdo qofka lama dhaqi karo, lamana taaban karo, lamana arki karo, lagumana tukan karo, maamuladu iyo dowladuhu dadkii ay u diidaan sabab kastaba ha keentee, qofkaa xukunkiisu xukmu salaati lghaa'ib buu noqonayaa. dadkuna waajibkii inay dhaqaan oy kanfaan ahayn way ka dhacaysaa, waajib aynan awoodin weeye. salaadana sidii qof meelaan looga tukanin ku dhintay weeye, salaatulghaa'ib baa lagu tukanayaa. ama wakaa waddanka iyo magaalada ay ka dhacday dhacdada ha lagaga tukado, ama meelo kale ha lagaga tukado. haddiise salaada la isu ogolaado oo la yidhahdo intaa yaan loo dhaafin, isaga oon la dhaqin baa lagu tukan karaa. sideedaba meyd aan la dhaqin ama aan la dhaqi karin horey u soo martay, waana wax siyaabo badan u dhici kara. qof baa guban kara, qof baa intuu dhinto muddo kadib la ogaan karaa meydkii oo bololay oo isku dhexyaacay oo dhacaan noqday oon laba taaban karin, loo dhowaan karin. qof baa waadan baa la arkayaa isagoo lafan noqday, qof baa loo cabsanayaa qofkii dhaqi lahaa oo xanuuniya looga baqayaa. intaba fuqahadeena iyo axkaamtii hore way ka hadleen. cuduradana waa dhici jireen, musiibooyinkan kale ee gubashada iyo qof dhintoo muddo kadib la ogaadana waa dhici jirtay weligeed. waxay fuqahadeenu isku qabteen qof lagu tukanayo oo meydkiisi yaallo waan la dhaqi karin, loona gebagabayn karin, ma lagu tukanayaa mise laguma tukanayo? masala khilaafiya. fuqahadeena shaaficida qowlka muctamadka ah, qaarkoodna khilaafka kuma jira ay soo guuriyeen, way isku xidhan tahay in la dhaqi karo ama loo gebagabayn karo iyo in lagu tukan karo. waa markuu xaadirka yahay ee joogo. fuqahada qowlka muctamadkaa lagu tukan maayo weye, laakiin waxay soo guurinayaan alkhatiib ishirbiini iyo fii muqni lmuxtaaj rag badan oo mutaakhiriinta ka mid ihi inay dhaheen iskuma xirnee, kan haddii maysuuru laa yasqutu bilmacsuur, wixii fududaa oo tukashada haddii la awooday qabee dhaqitaan iyo gebagabayn iyo tayamum in loo gebagabeeyana aan la kari karin, waa laba waajib bay ahaayeen. mid haddii la awoodi waayey midka kalea la iska doonayaa, waa lagu tukanayaa. sidaasayna raggii ka dambeeyey u bateen. culimo kaleoo badan oo muslimiinta oo qabana way jiraan. saas darteed waa lagu tukan karaa cala saxiixi. lagu tukan maayadu waa qowlka muctamadka fi lmadhab ah fuqahadeena shaaficiyada.